gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo wafdi balaaran oo hogaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Wafdiga uu horkacayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa degada diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. wafdiga uu horkacayo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa markaa ay soo cagadhigatay diyaaradii siday garoonka Shaati Gaduud International waxaa ku soo dhaweeyay bulshada ku nool magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Safarka ayaa sidoo kale gudoomiyaha waxaa ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdiweli Ibraahim Moodey iyo wafuud kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk Soomaaliya. Markii dambe ayaa wafdiga uu horkacayay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaa loo galbiyay xarunta qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. safarka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku qotoma sidoo uga qayb gali lahaa hal sano guuradii ka soo wareegatay markii la doortay xukuumadda madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen. munaasabad lagu weyneynayo ama lagu taageerayo tan iyo xilka markuu qabtay gudoomiyaha ama madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo la filayo dhawaan inay ka qabsanto magaalada Baydhabo. wafuud isugu jirta wasiir iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku sii qulqulayay maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ayagoo la doonaya inay ka qayb galaan xafladda lagu taageerayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sanad jirsatay xukuumaddiisa tan iyo markii la doortay. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku faanay in xilligii ay dowladiisu ay jirtay wax badan ay u qabsoomeen wax kalena ay u harsan yihiin isla markaana ay ku hoolan yihiin sidii ay u fulin lahaayeen. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xilligii kaambeedka amba tartanka uu ku jiray waxa uu ballanqaad u sameeyay bulshada reer Koonfur Galbeed ee ku nool saddexda gobol oo ka aramiyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaan la hadlayay golaha wasiirada maamulkaasi waxa uu sheegay in wax badan ay u qabsoomeen gaar ahaan dhismooyin ay ku socdaan xarumo isbitaal iyo iskuulo waxbarasho oo ay ka faa'iideysanayaan bulshada reer Koonfur Galbeed ee ku nool saddexda gobol. waxaa la filayaa dhowaan in xaflad lagu taageerayo madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka dhacdo magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo. wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Baydhabo ayaa waxaa howlgallo ka sameynaya ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa AMISOM gaar ahaan militariga Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo. borar ayaa lagu xardhay oo kuwaas ay ku xardhanayeen calaamada Soomaaliya iyo kan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sawirada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la filayaa xilliga munaasabada lagu taageerayo khudbad dheer inuu ka jeediyo madasha ka soo qayb gashay kulanka oo la filayo dhawaan inay ka qabsanto magaalada Baydhabo caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.